sidaad halkan ka daawanaysaan saaxiibayaal walaalayaal waa u jeedaan wali waxaan saaranahay M40 oo ah motorway 40 oo u socda Birmingham barnaamijkana maanta waxa uu ahaan doonaa bal inaanu dadka Soomaaliya ku wacyigelino haddii dawlad la helo in la dhisi karo midkaan oo kale aan hadda marayno oo aan maanta ku soconno sababtoo waxa uu ku yimid qabiil kuma iman goboleysina kuma imaanin waxa uu ku yimid daawadayaal waxa weeyaan dawlad ayuu ku yimid shacab taxi bixiyay buu ku yimid dad wada shaqeeyo ku yimid haddaan intaa la helin Soomaaliya weligeed ma dhismayso haw khadan adwa marka socodkaan diidayna waxa uu ku sheegaa kan hadda aad u jeedaan waa service buu sheegaya 17 maal buu noo jiraa waa u jeedaan laymanka dhinaca kale 3 baa orday halkana 3 baa ordaya waa 6 line oo isdaba yaacaya 6 line waxa loogu talagalay inuu qofku ku soo ilaa 70 mail oo u dhiganta 100 kilomitir marka ducaal su'aal hadaan ka weydiiyo maxaa dhacaya 70 mile per hour kan ama 70 mile saacadiiba ka badan haddii lagu socdo maxaa dhacaya waxaa loogu talagalay wax walba xad bay leeyihiin cuntada xad bad ka cuntaa intaa ka badan ma dhaafi kartid 70ka waxaa loogu talagalay waa inta loogu talagalay inuu qaadi karo carriage-kan saaranahay sababtoo haddii kale waxaa dhici kara inay baabuurta xoog intay u socoto ay iska daba tagto dabada iskaga dhacdo oo dhibaato ka timaado oo dhimasho ku timaado waa sida daraaddeed oo wax laga shaqeeyay ma aha inay iska qorin 70 mile per hour oo wax ay tijaabiyeen inta uu size u qaadi karo waxa laga yaabaa saacadii in 2003 saacadii inay 100,000 ama 20,000 ama 30,000 ama 200,000 oo baabuur ay marto Soomaaliya kala cidla ma meesha wadan qani waa gartay hadda kaliya oo Christmas-ka hadda lagu jiro waxaa la yiri ilaa iyo 40 milyan oo baabuur baa UK dhex yaacaysa 40 milyan oo maalintii waxaa la habeenka Jimcaha habeenka kaliya 40 million cars on the road ali marka they have to control everything dad baa cabsan dad baan cabsanayn marka 70 qiyaasta ku sareysa ee wadanka lagu wadi karo okay oo ah 110 ilaa iyo 150 haddii limitka noocaas la dhaafo oo sare loo dhaafo maxaa dhici kara dhici kara inay baabuurta isku dhacdo oo dhimasho badan ay timaado haddii laga badbaado laakiin lagugu qabto adigoo 80 mile per hour ku socda waxa weeye police baa meel kasta taagan iyo kaamirooyin waxaa laga jaray 12 dhibcood bay leedahay baa lagu siiyay 12ka dhibcood mar walba waxa leeyahay offense haddaad gasho dembiga 3 baa laga jaray haddaad wadankan ku wadato insurance laan ama canshuur maxaa la yiraahdaa عيمس وحوي لحد بعض بالقاعدة وحالي راح suspension اللي يرادو وير أما 2 years سنة ده ما سنة اللي يقولي على الجابة مركا متعين أنو حتى أنو الصومالي أو وطن كنا متعين بأنه هذا مركا دي بيقول نقطة الدعاء هذا أنت هذا هو أقصى عطر و 60 mile per hour exactly تدواتن كي واتكو سيسا ما دام أنا هطلع وحندونا يا سيفي تيجي دراديس وأنا قفل الله مسح مية لنكره marka wadadana waa inaan wax ka siiya ajalada aan duubaysana waa inaan wax ka siiya marka wax concentration ka yahay ma hadda aan maskaxdayda ku aado waxa inaan gaariga aan ilaaliyo inaan hadaba wadadan oo ah M41 M42 oo London ka timaada kuna socota waa M40 sorry M40 oo ah wadada ka timaada isku xirta London iyo Birmingham عاصمة كوادي عاصمة الرباط وهذا أنا صارناهاي وحنا نصح كور كسب إحنا مقالة لندن وحنا كسر صعنا مقالة برمنغهام وحنا جعلنا يدوينا سوماليات مركينا نكتر عنا أما ندرسينه واحد دولة نمرة تاعي طريقة إسباروين ملها وبقول مايل أو ديجانتا وبقول 8 مايل أو ديجانتا وأدو لما بقول أو دو كيلومتر أدو بقول 30 كيلومتر بقول 30 كيلومتر وحيود ينتا بلدوينة يو مقدشو أما ويكونوا دو ذهبا وأنا سبارة لهين عدكو استاجني ساعة لهين لو كلا صعونا يو ساعد يطبن ساعد يبر هذا حوارها وانتو ليجي هاي لكن انت بدل لو كلا سعودو 2 ساعات
maximum 2 hours sidoo kale oo half hour ama waa saacad iyo bar bal hadigoo maanta ka soo tagay magaalada Muqdisho oo beledweyne ku tagay saacad iyo bar gudahood oo inta beledweyne danaha ka soo qabsatid aad ku soo noqotid Muqdisho bal ilaahay baan idinku dhaariyay sidee bay noqon lahayd aad baa qurux badnaan lahayd ducaale arintaas waa arin beledweyne Muqdisho beledweyne saacad iyo bar maanta dadweynaheenu wuxuu u socdaa maalin gelinkeed maalin dhan baa loo socdaa ama maalin iyo habeen adigoo saacad iyo bar ku gaari kara bal ka waran waxa keenaya waa dawlad la'aanta iyo dadnimo xumada shacabka Soomaaliyeed laftigooda waa inay iska bedelaan qabyaaladda oo dad muslimiin oo wanaagsan noqdaan oo ay doortaan dawlad midaan oo kala wax dhisi karta oo dad u shaqeynayna niman meel ku xirxiran oo iyagu meel isku soo xiray oo quraacdo iyo cuntada ka fikiraya inay dawladda raaxan kaliya oo wax kale ka fikireen artaa dawlad lama yiraahdo ninkii taa dawladnimo haystana waa nin waalan ana waxaan haystaa nin waalan sababtoo ah dawladdu waa tan loog fiiri dawlad waa tan la joogin sharci sameysay jidkaana u jeeda dadka bixiya aniga waxa la iga qaadaa 6 bilood 100 iyo waxaan bixiyay 118 gariman 6 bilood bixiyay ma dhuuma karo ma khiyaami karo I have to inaan bixiyo sababtoo wadadan haddana aniga aan bixin ma samayn karaayo dawladda lafteedu waxay u baahan tahay shacabka inay bixiyaan laakiin dawladda kale lacag ka sugayso wadankiina lacagtii ka soo baxay dadkii aan bixinayn dadkii individual u nile war anigu guri waxaan dhistaniyo 7 dabaqa guriga hadduusan biyo lahayn oo dawlad lahayn waligaa Yurub baa ku noolaanaysa gobolna laguma noolaan karo maxaa la soo qabeen gobolaysan laguma noolaan karo hadda gobolada Soomaaliya oo dhan hospital fiican male iskuul male police male askar male nothing waxyaabaha ugu yaabka badan toddobaadkii la soo dhaafay waxaa la dilay wariye ka tirsan wariyaasha magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay caasimadii magaalada Muqdisho bartankeedii waxaa la leeyahay nin ciidamada qalabkooda gashan ama dharka ciidamada gashan ayaa dilay waa maalin habeen maaha goobtii uu cararay halkii uu sii maray gurigii uu galay xafiiskii uu galay waa la yaqaan waxaa la leeyahay haddii la soo qabtayna waa la sii daayay cadaaladda noocaasa dalkan haddii qof laga shakiyo qof buu dilay ama laga shakiyo qofkan waa dembiile waa la xiraa muddo dheerna wuu xirnaadaa inta laga baarayo maxay bal ku dhici kartaa qof bini aadan ah noole ah la dilay naftiisii la gooyey in at least war qofkii dilay in wax la weydiiyo oo su'aal la yiraahdo bal la hor imo iyo in la soo qaban waayo maxay ku dhacdaa sababta ku sheegay waxa weeye sheekh meesha sharciga Soomaaliya waxa ka weyn qabyaaladda iyo qabiilka ka weyn quraanka qabiilka ka weyn nin walba waxa ka weyn qabiilka marka aniga meesha ku badan ana dadku ana iskale ana waxaan raba sameyn kara that's what it is gobolka oo Soomaaliya marka wadanka waxa weeye dadka area degan ama dadka ninka markuu wax dilayo murderka waxa soo qabta shacabka soo qabta booliisku ma soo qabto booliisku waa loo sheegay waxa la yiraahdaa ninka halkaas soo galay booliisku waxay yiraahdaan xataa haday dadku joogin hadduu qof halkaa maraya soo sheego mana sheegayno identity uu sheegaya laakiin booliiska kan waa booliis dawlad sax ah jirto oo aan qofkii looga daba iimaanayn laakiin halka hadaa sheegta caawinta lagu iimaan laga war cabdi aan soo ma sheegin ha caawan maqalto lagu dilaya inta telefoon lagu soo diray leeyahay war yaa isboode hadda dhimanaysa marka waxaasoo dhan Soomaaliya waxay u baahan tahay in laga remove gareeyo qof telefoon inta loo soo diray leeyahay waa lagu dilaya Soomaaliya waxay u baahan tahay dad muslimiin islaam qof ninka madaxda ah oo islaamka madaxda ah iyo ninka shacabka isku darajo joogan awood u baahan moogiye ma isticmaali karo power peace waxa la yiraahdaa Soomaaliya ku jira macnaheedu inuu yahay ana meesha xukuma waxaan rabaa sameyn kara ninka dilay shacabka ku dhex jira waa loo yahay labana soo qabanaa because waa ina reerood duusan ahayn waa la soo qaban la anigu wadanka haddaan maanta qof dilo hadda ilaahay dhib uma keen halka haddaan dhibaato ka geysto within hours gudahood waa la soo qabanaa waayo dadkii baa ay sheegay gaarigan wataa la sheegay saano ay kaabaa la sheegay inta dharkadu yahay la sheegay Soomaaliya taas
ilaa dowladnimo dhaba beriga hore Soomaaliya markii dowlad jirtay ma aysan jirin laakiin hadda dowlad ma jirto that is a fact okay ducalow ma isleedahay dadka Soomaaliyeed mid kala rabo dadka Soomaaliyeed maanta Ilaahay kama baqayaan shakhsi bay ka baqayaan xaqa ma sheegi karaan war qofku inuu dhinto xaqa sheegaa la qaato oo yiraahdo war ninkaas aadil hal la soo qabtay ninkii waxaan dhibaatada ka damay laftigiisana la soo qabto ilaa ninka fikradda kaligiis waxa laga yaabaa in dadka ay la wadaageen we don't know anaga Ilaahay dabcan kulay mad Soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan baa dhinacyo fara badan ka haysta waxyaabaha la qiyaasi leeyahay waxa kamid ah sidee u dhacdaa dawladdan oo baarlamaan leh oo nidaam leh oo xubno leh baa waxa la yiri xubnihii ugu badnaa ee baarlamaanka shiray waxay rideen gudoomiyihii baarlamaanka waxa kale oo dhacay gudoomiyihii baarlamaanku waa diiday inuu arrintaas qaato iyadoo aan baarlamaanku ridin isaguna aanu diidin ayaa waxaa madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo iskhilaafay dartood baa la yiri prime ministerkii Farmaajo oo u muuqday inuu taageerayaal badan haystay hal rido Farmaajo dadweynihii baa kacay meel walba laga kacay wuxuu yiri anigu waa tanaasulaya waxaan u tanaasulayaa in maanta marxaladan lagu jiro darteed baan u tanaasulaya haddii arrintaas timi waanu iska tegey iyadoo dadweynihii qaylinayaan oo ay leeyihiin no ma doonayno in Farmaajo tago ayuu tegey iyadoo dadweynihii ay leeyihiin ha naga tago gudoomiyaha baarlamaanka oo ma doonayno cid walba ay diidan tahay baarlamaankii uu diidan yahay in la khasbo oo uu joogo oo uu dacwoodo oo uu qayliyo oo maxaa keeni karaa isleedahay waxaan kuu sheegaa dhimo meesha inaysan legislation adduunka waxaa jira sharci dadka kala hagaan oo nidaam dowladeed baa jira there is no constitution ma jiro wax constitution la yiraahdo yaa soo sameeyay constitution-kan waxaa lagu soo sameeyay meel la yiraahdo imbigati shacabka Soomaaliyeed kama qayb qaadan dal Soomaaliyeed laguma sameeynin nimankan meesha fadhiya ma aha niman Soomaali u shaqeeya waxay u fadhiyaan naftooda maalintii dhacaan bal ii sheeg hal nin bal nimankaas hadday dadka ama dalka niman u shaqeeyeen bal hal maalin dibadda guryaha uga soo baxeen hadday rag yihiin dibadda uga soo baxeen shacabka ha u tageen ma arkaysi nimankan waa calooshi u shaqaystayaal meesha fadhiya shacab Soomaaliyeed ma shaqeeyaan nidaamna ma hayaan maxay yaqaan inta kale ii sheeg shariifkan hadda la sheegayo ninka le gudoomiyaha baarlamaanka war iskuul sar kama soo bixin inaa iskuul sar ka soo bixin oo aan aqoon lahayn baa waxa lagu leeyahay waxa weeye gudoomiyihii baarlamaanka waddankaana waa aragtay ninka backlow baa la yiraahdaa ninka baarlamaanka Ingiriiska ah iskuma mateli karo comparison wax sama samayn karo laakiin waxa ku sheegay nidaamka markii nin markii la rido waxa weeye waa tagaa si haddaan u soo noqdo Farmaajo nin waxaan nimanka meesha jooga waa niman calooshii u shaqaystayaala ninkaanu Soomaalinimo ku hadlay maadaama Soomaalinimo ku hadlayna saasa looga saaro haddii nidaam iyo kala dambeyn ay jirto oo shacabka Soomaaliyeed dhageysan lahaa waxa weeye ninka meesha uu sii joogaa laakiin nidaamka meesha jira waxa weeyaan anaa meesha xukuma anaa meesha degan ilaa meesha intaa ka baxdo oo dad Soomaaliyeed sidii siyaad barro oo kale la helo dad Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan meesha waanu 4 nin iyo 5 nin aysan ahayn dadaan waxba garanayn Soomaali aan metelin dad Soomaali metel markay may soo fariistaan hadal way wanaagsanaysaa laakiin waxaan sheegay shacabka Soomaaliyeed inay arrintan raalli uga yihiin haddaysan raalli uga ahayn Farmaajo way soo xirinaayeen dawlad wanaagsan dhislaan ana eedoo dhan waxaan saarayaa not those guys thieveska Soomaaliya jooga kama hadlayo crooks Soomaaliya jooga kama hadlayo waxaan ka hadlayo waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee qadiimiga ee qurunka inay ka tagaan oo islaamku u noqdaan sidee baa shabaab fiiri shabaab oo 13 sidee baa 12 ay ku qabsadeen maanta 12 degmo 12 gobol oo Soomaaliya cadaalad wana ka hadalnayo waa inta yar islaamka ay dadka leeyihiin walow iyaga laftigooda dadka ay maqooninaayeen oo loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay u naxariistaan oo ay dadka dilaan oo dadka qoorta ka gooynin oo noqdaan dad walaalo islaam oo islaamka ku dhaqmo iyaguna leeyihiin anagu maanta inaan talino ma ogiye nin kale nooma talinayo which is absolutely wrong qofka bini aadamka waddanka waxa weeyaan ama wadamada islaamka waxa weeyaan ninka iimaanka waxa laga rabaa inuu noqdo nin zaciim ah oo dadka u qoon oo dadka aan argagax ku nool ayna isaga ka baqaan toos Allah uga baqaan laakiin waxa dadka ragga Soomaaliya maanta jooga inay noqdeen kuwa
bahdilay dadka Soomaaliyeed oo aad arkaysa in ninka Soomaaliga oo ninka kale walaalkiisa uu xoog badan yahay laakiin markii Itoobiyaanku soo galo ama Kenyaatigu soo galo aad arkayso inay dhabarka u dhigaan waxa fool xumo nimanka Muqdisho jooga ee madaxda sheegana madax Allah ka gooyay inay maanta u ogolaadeen Itoobiya iyo Kenya oo ay dhaheen waa walaalahayna soo galeen xagee bay walaalnimada ka keeneen Itoobiya iyo Kenya waa laba dawladood daris ah laakiin nimanka maanta haysta waxay ku tashadeen dadkan muslimiinta ee Soomaalida inay madax ka gooyaan laakiin mid ha ogaadeen Allah subhanahu wa ta'ala fir'aun markuu soo diray fir'aun markuu dadka dhibaayay oo reer bani Israa'iil uu dhibaayay maxaa dhici jiray makasaysa in Allah subhanahu wa ta'ala uu Muuse u soo saaray Muuse uu ku soo koray gurigii fir'aun dad badan oo maanta Kenya iyo Itoobiya ku nool waxay noqon doonaan kuwa halaagi doona wadamadaas sababtoo ah waxa weeye dadka Soomaaliyeed waa la dhibay wadankoodii baa lagu dhibay oo laga soo qixiyay oo xiriyaa loo sameystay sida lo'di halkaas lagu gowracdaa kii raba lagala baxa kii raba lagu kufsadaa wax ka hadlaya ma jiraan marka sababtiisa ku gaareen waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed iyaga isdulmaay wallahi baan ku dhaartay billahi baan ku dhaartay ilaahay dulmi ka baxaan oo ilaahay ka baqaan oo islaamnimada u soo noqdaan dulmigaas ku noolaanay oo qof walba dambiga uu galo uu sheego warniyo anigu dambigaasaan galay ilaahay dartii ha leey cafiyo waan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa ninkii saa yiraahdo oo goor loo dhaha in la cafiyo ninkii qof Soomaali shakhsi Soomaali soo dilay oo yiraahdo hal la cafiyo waxaan aaminsanaa in la cafiyo waliba la bukhro oo wax la siiyo sababtoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri التاب من تاب ذنبه كما لا ذنب له أو كما قال نكي ذنبي كتوبت كان أسوأ ذنبي يفلن وكلا لمتان تكلا إلهي وحل لا تقنطوا من رحمة الله والرحمة ده إذا كقوسنا حتى كون قفت شيء أقوسنا لكن ما أنتوا حالك رما دتك دلا هنا وتكتب ودتك كحلس حتى حوالنا على حولينا تسكحلس ورحداد وحم سميسي ما أنت جدكم كوب الناية الله أنه سبحانه وتعالى والدولة لماذا كبر والدولة لماذا نباهنا الدولة صحة ومسلمة هو ناكسن ودتك صومال المال كيس أنرن صومال برجر وحد يجري ورني أنا مال باليدي وحرنا كشق يستحقها ونقولي كبسنا ما أنتوا حي مرد دونا دلك دتك صوماليين يفسدان حقا إنه قولي وحاسب كأجد ما أنتوا حل دونا دول كله رجي مدح الصومالية ما أنت كأهنجري زياد برينت كده ميسي ما أنت حقي كله لعبد الله هذا كويتينا يجي جوال بتاس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نورت مركو قورنا سبحان السلام يا أمة الصوماليات ميلي واي جوجان بوحان سلام قارة ودري عند الهيرة يا أرض الصوماليات الجيل كحسب ما أنت ديار كوا يعني دلكوا بحكمتان كنا سمايان يسبدل طبعا هذا صون نقول سؤال صاحب كيد على عيسى يوسف صارت أقول دينا وكل شيء قال وهي مدح الوطن كان جونا مدح الأفريقيان كأوكله كل إني وطن ما تيجي جوجان لأن كسر الصومالية مركو مدحتني ماذا كده جوانو كعرب رجع هذا وقدم به أول رجع هنجري وسير اللي متبدأت رجع هنجري برلمان محل الرئيس يسوق وسير ذي كوري وسير ذا واي كي يوتوبيين أمريكي يورو نولي أنا تصل تكلمني كي مدحين ماشي كنقطع حتى الشرف مركو مدحين ماذا كده معه وأركض أنت أما تركي وعادي أما لأن ما كسين دونا بوس وكده أصلا مدحين الصومالي هنجري وحشر الدراء مركب محمد على الصوماليين هذي ركب عنين يودك كوذا يوجيب وين ودك كوذا هجا يجين وين ولالو horta su-aashaas jawaabteedu waa runtii wax ummadda Soomaaliyeedna ay u baahnayd dhalinyarada Soomaaliyeedna inay ka faa'iidaysato iyo ardayda Soomaaliyeedna ay muhiim tahay waxa weeye ninku qofka bini'aadanka waxa wax ugu filan inuu dalkiisa iyo dadkiisa dambi ka galo inuu dalkiisa iyo dadkiisa uu hanan waayo dareenkii shacabkiisa uu ku hanan lahaa inaanu helin waxaweye qofku intuu joogo wuxuu fikirayaa in yar inuu lunsado deetana in maaragtay maxaa la yidhaahdaa uu maalmo noolaado maalmahaas wax lunsanayo oo noolaanayo waxaa lumaya oo dhimanaya caruur Soomaaliyeed oo badbaado u baahnaa raggii badbaadin lahaana ay iyaga yihiin runtii kuma noolaan karo marka shacbi wada eegaya qofku haddaanu dambi gelin rayid yahay sida aadan cabdullahi cismaan oo kaleeto shacbigiisu ku dhex noolaan lahaa عبد الرشيد علي شرماك الله يرحمه عبد الرشيد علي شرماك oo kale
shacbigiisa hambal u ah oo ummadiisa dhex maraya oo runtii aan inaba wax dhibaato ah ku qabin marka run ahaantii waxa weeye waa dhibaato jirta weeye ta kaleeto wax maanta loo baahan yahay arrinta ka jawaab waayo madaxda Soomaaliyeed marka xil ka degaan ay wadankooda uga cararaan walaal maxayse nabadgelyo u sameyn laayihiin inta ay joogaan lacagta waxana walaal principally qof walibaaba wax buu qaadi karaa qof walba mug buu leeyahay muggaas qof walba leeyahay ayuu qaadaa qof walba nin waliba maskax buu leeyahay maskaxdiisu inay gaarsiisan tahay nin vision kaas leh aragtidaas fog leh haddaanu ahayn oo waxaad u muuqan karaa ay tahay adduunyo jawaabkiisa siduu buuxsan lahaa ku fikiraya dhibaataduna maalinta ka horeysa way sii badanaysaa Cabdullaahi islaam baynu nahay miyaa laynoo baneeyay inaan lacagta masaakiinta dadka masaakiinta loogu talagalay oo dalkaan lagu dhiso inay afarta meesha jooga intay fariistaan ay beegtaan oo nin walba bax ku shubto oo uu dibadda u qaato xataa wadanka lacagtaas aanaysan cusbitaal ku dhisayn magacooda ku qorayn iskuul dadka aan uga dhisayn laami ay ugu sameeyeen حتى حقا راشيني ويبينين محيو تريسا مركي انتو قاضينو انو سويتزرلاند انتو جيو وكدمان دونايو dadkii Soomaaliyeed ka afqabay ama Kenya iyo Ethiopia geena maxay taa qiimaha ninka Soomaaliga ku khasbay inuu lacag Soomaali ka raro oo dadka xoog siinay ducaale walaa runtii xikmad rabbi baa ku jirta way Ilaahay ballamuu qaaday inuu cadaabtiisa buuxin doono wax laga ma bedeli karo laakiin waxa nagu yaab kale waxa weeye badida ay bateen inay jiraan oo dad noocaasi ay jiraan oo waxyaabaha Ilaahay uu shuruucda noogu sameeyay in wax la xiro in wax la maaragtay wixii dambi galay in dambigooda lagu qaado loo dilo in maaragtay ummadda laga dhex saaro in la masaafuriyo waxyaabahaas oo dhan waxay u yimaadeen waa dadka nidaamkii iyo aragtidii qaban lahayd iyo revolutionkii ama islaamiga ahaa ama wadaniga ahaa ama constitutionalka ahaa mujtamacaasi for example hadda European ku noolnahay dalkan Britain shuruuc baa ka jirta absolutely shuruucdaas inagoo muslimiina inaanu xor noqono aan noqono dad dalkii ka shaqaysta oo hadda maanta anigoo kaleeto aabbaanahay carruuraan leeyahay gabadhayda iyo carruurteeda nin u shaqeeya oo gurigiisa isagu leh oo mas'uuliyad xil ka saaran yahay baan nahay rag nala mid oo carruurtoodii dayacay oo inoo ognahay in carruurtooda suuqa ku saaqdeen oo aan vision iyo aragti fiican aan haysanin baa laleeyahay wasiirada inoo yihiin oo baarlamaanka inoo ku jiraan oo guddoomiyayaal gobollo iyo degmooyin bay yihiin يعني waxyaabaha dhibaatada oo naystay ka mid tahay marka su'aashadan u soo noqday maxaa ku khasbay nimanka kan Soomaalida ee madaxda wuxuu rabaa noqday ama wasiir noqday madaxweynaha noqday maxaa u diiday lacagta loogu dhiib shacabka in wax ka siiyaan waayana ay Ethiopia mar walba u tahay u soo waayo mar walba oo ninka Soomaaliga uu Ethiopia ugu carray oo Meles ugu carray ama Kabaki Kenya ugu carray asoo nin Soomaali Ilaahay dalkaasi dadka shacabka Soomaali waayo ninka Soomaaliga Sheekh Shariif maanta laba nin ama saddex nin oo ajnabi oo Ugandays ay gadaashiisa u taagan waay ay u taagan yihiin oo u diiday inuu nin Soomaali oo isaga lamida oo gadaashiisa istaago arrimahan maxaa u diiday in nin taangi inuu galo Ugandays uu leeyahay asoo shalay ahaa liidarkii muslimiinta ducaale runtii waxay